boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa gaashaanka u duruurtay isla markaana diidmo qayaxan saartay kaalmo dadka Soomaaliyeed ay gaarsiiyeen boqortooyada Sacuudi Carabiya muddo haatan laga joogo 128 sano waqtigaas oo dadka Sacuudi Carabiya ku dhaqan ay ka cabanayeen macluul iyo gaajo baahsan oo ka dhalatay abaar lixaad leh oo ku dhufatay dalka Sacuudi Carabiya xilligaas. diidmada boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa soo shaabaxday saacado kooban kadib markii warbaahinta caalamka iyo baraha bulshada ay qabsadeen warbixin ka hadlaysay in Soomaaliya ay gacan siisay boqortooyada Sacuudi Carabiya waqti haatan laga joogo 128 sano. kaalmada ay Soomaaliya ka geysatay dalka Sacuudi Carabiya muddo haatan laga joogo 128 sano ayaa ka dhalatay kadib markii boqortooyada Sacuudi Carabiya xaalad abaar ay gashay isla markaana isbedel xooggan uu ku yimid hanaankii iyo habkii nolosha dadka Sacuudi Carabiya, waxaana gacan qabad iyo garab istaag u muujiyay Soomaalidii xilligaasi joogtay oo lagu tilmaamay inay ahaayeen kuwa kaliya ee gurmad iyo birmad xooggan gaarsiiyay dadka Sacuudi Carabiya oo waqtigaasi u li'anayay gaajo iyo macluul ka dhalatay abaara baahsan oo dalkaasi ku dhuftay. balse wargeyska Al-Marsad ee ka soo baxa Sacuudi Carabiya oo soo xiganaya qoraal la soo dhigay barta Twitter-ka taariikhu Al Sacuudi oo laga leeyahay boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa gaashaanka ku dhuftay warkan sheegaya in boqortooyada ay gacan ka heshay Soomaaliya muddo haatan laga joogo 128 sano. balse taariikhda ayaa qorayso in sanadii 1313 hijriyada oo waafaqsan 1895 dhulka Sacuudi Carabiya ay ka dhacday abaar baahsan taas oo saameyn ku yeelatay nolosha dadka Sacuudi Carabiya oo u badnaa waqtigaasi xoolo dhaqato, balse Soomaalidu ay si weyn u garab istaagtay Sacuudiyiintu kaalmo kala duwan ay halkaasi gaarsiisay. taariikhda ayaa xusaysa sidoo kale in kaalmadii dadka Soomaaliyeed ay gaarsiiyeen halkaasi ay isugu jireen xoolo nool oo geel, lo iyo ari leh, sidoo kalena dalag kala duwan oo ka soo baxay dhulka Soomaalida ayaa mucaawino ahaan loogu geeyay bulshada Sacuudi Carabiya si wax looga qabto macluusha baahsan iyo gaajada ay u lamaanayeen dadka reer Sacuudi. Twitter-ka boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa lagu daabacay war u qornaa sida tan: taariikhda Sacuudiga, wararka ku saabsan in Soomaaliya ay garab istaagtay oo ay caawisay 1313 hijriyada waa warar xaqiiqada ka fog, xitaa weli sooma marin. taariikhda Sacuudiga kaalmo uga timid Soomaaliya ayaa lagu yiri warkan looga jawaabayay gacansiintii Soomaaliya ay u fidisay walaalahooda Sacuudi Carabiya. inkastoo baraha bulshada iyo warbaahinta caalamku ay si weyn u lafagureen taariikhda Soomaaliya iyo waliba kaalmadii ay u geysteen walaalaha Sacuudiga muddo haatan laga joogo 128 sano, haddana waxaad moodaa Sacuudigu inuu si weyn u dafirayo isla markaana u qarinayo xaqiiqada la xiriirto kaalmadii Soomaaliya ay gaarsiisay dalka Sacuudi Carabiya, waxaana dood adag ay ka dhalatay qoraalka Twitter-ka boqortooyada Sacuudi Carabiya lagu faafiyay, taasi oo dad badan oo Sacuudiyiin ah ay ka falceliyeen isla markaana ay sheegeen in Soomaaliya kaalmo ay gaarsiisay dalka Sacuudi Carabiya 1895 waqtigaas oo Sacuudi Carabiya ay la daalaadhacaysay luul iyo gaajo ka dhalatay abaara baahsan oo dalkaasi ku dhuftay. dadka Sacuudiguna waxa ay quudanayeen muddo sanado ah kaalmadii ay geysay Soomaaliya.